بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى وحن كبرنا إنه نغا أقبله صون كينو صومنين إيو صلاة إنو تكني إيو صلاة إنو إيمان دون طبع. إلهي وحن كبرنا إنه نغا أقبله. ولا ليال وحل اسكو عديو وحا أقوى ناكسن كتاب إلهي سبحانه وتعالى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نبي إنه وحا كسوغا إنه يري من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نبي نوحي عليه الصلاة والسلام قفكي وبريسته قريسي سوى أمنه في سربه في أهله وفي بيته. قفكي قريسي كوا بريسته أمني هلا معافا في جسدي شركيسنا وعافمات قبو وان حنون يحبا قبل عنده قوت يومي ما لنتاسنا هيستوحوا عوني لها ننكاس فكأنما حيزت له الدنيا دنيا لن نلوسو حنتوبيوي ولا سيوي نمعذا مركا قفكي كم غانتاهي با قيمه هذا قرانيا أمنيقو والله سعوتانو ضد بدن او إناقا إنا لميدا او مسلمين maanta amni aan haysan dad baaba ciyaalkii waxay ku wataan sidii xayawaanka afka ku wato la cararaya oo waxa laga yaabaaba in cadow uu dul sabaynayo oo uu maaragtay hubkiisa uu ku furayo. marka adiga mar hadii Ilaahay amni ku siiyay subhanahu wa ta'ala waxay mudan tahay inaynu ku shukrino amnigaas oo Ilaahay ina siiyay subhanahu wa ta'ala baynu mudan. walaalayaal amnigu laba wayo midna dunidan hadda qofku wuxuu u baahan yahay xayaatadaada iyo noloshaada ba istaagmayso hadaysan amni aadan helinba cibaadadu xitaa inoo suura gali mayso oo dadka hadda isku iimaanaya hadaysan amni jirin waxa weeye la iimaan mayo. xanuunkii waa la socotaan hadda dhacay ka hor oo covid-ka la oran jiray wuxuu inaga manciyay masaajidada iyo meelaha isugu iimaaneen. marka hortii wixii khayr iyo amni aad haysatid inaad ogaatid oo aad Allah subhanahu wa ta'ala aad ku shukridid weeyaan. amniga waxa kamid ah oo kale inaad aakhira amni noqotid oo aad u shaqaysatid sida aakhira amni u noqon lahayd. Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala alladheena aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidhulm ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. dadka aakhira amniga helaya oo cadaabta Allah subhanahu wa ta'ala ka badbaadaya waa dadka iimaanka leh, dadka muslimiinta, dadka ahli tawxiidka. qofku inuu ku dadaalo weeye marka inuu tawxiidka iska saxo weeyaan. marka faqrada ugu horeysa amnigay ka hadlaya xadiiskaasu. marka amni hadii Ilaahay ku siiyay Ilaahay ku xamdi subhanahu wa ta'ala. tan labaad nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wassalaam maaragtay wuxuu ka hadlay nabigu caafimaad in Ilaahay jirkaaga ku siiyay. imisa xanuunsan وان صلاتها إيمان كرين أو إيمان شري إمسا إلا ذا غبا أذو هذا الله قاربا عندها لا أذو إلهي إنه كسي قاربا لغلا إلهي لغو كسي سبحانه وتعالى إن تكشك ريدت بعض مضانته إن تكشك ريد الله سبحانه وتعالى سوكو بدباديه وما رك تكوسي هذه النمعة يضعه قفكي رباه إنه أرنتاسو كله وحكوا قاعدوا حتى جو ما لها ضدك حنوصل لغوهيو إسبيتالوتك isbitaalka marka tagtid dad qaylinaya dad ooyaya dad xanuunsan dad la yiri ma aragtay xanuunkaagu daawo male wahaakada way Ilaahay subhanahu wa ta'ala adigana barwaaqo amni amaan iyo caafimaad lixdaadi lixada qabtid ayuu ku siiyay. markaas qofka hadana basharka waxa laga laayahay war iimow salaadihi war khayrka ka qayb gal war iimow maarta safka hore iimow wahaakada qofku moogta hadhow markaad micnaha caafimaad darra ay kugu dhacdo waxa weeyaan hadda waxba lagu qorimayo
dadka fiicnaayo safka hore iyo meel walba iyo khayrka u hori jiray hadhow haddii cilladu ku timaado ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ajarsiinaya laanno niyaddooda la yaqaana marka haddaad rabtid inaad arrinta caafimaadka wax ka ogaatid waa inaad isbitaalada aad tagtid oo soo siyaaratid markaas arkaysaa qiimaha alle iyo caafimaadka alle ku siiyey qiimaha uu leeyahay qaybta ugu dambaysa xadiiskan uu ka hadlayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam cindahu quutu yowmihi maalintaa waxaa cuntid haddii alle ku siiyey wey halkaa waxay ku tusaysaa qofka muslimka hamigiisu maaha inuu mustaqbalka ku dhumiyo iyo wuxuu cuni doono ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qadaray waana ku imaanaysaa wixii alle subxaanahu wa tacaala uu ku qadaro adaa la rabaa marka xiriirka adiga iyo allah leedihiin inuu xiriir hagaagsan yahay maxaa dunida lagu keenay cibaada wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risq وما أريد أن يضعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رازقه إساقا إن إرزاقه قفنا يوصل ليه المسكحة دينا سوقل حرفض إيو عقلي إيو رغانيمو إيو أرض بدن إيو وحبان كوهلا ألا كو قدر سبحانه وتعالى مركا النبي قوحي عليه الصلاة والسلام عنده قوة يومي دوني ذا مركا اللقوة المامية وحوية وردوني ذا أن هداد كهشد قرئات قشد إيا ميلات قشد هداد كهشد عافمادنا ربي كسيو cunno aad cuni lahayd maalintaasna aad haysatid ogow dunidu waa lagu siiyey dunidu qiimo ma leh waxa marka loo bandhigo alla subxaanahu wa tacaala jira iyo aakhiro iyo janno iyo waxa jira qiimo weyn ay leedahay male wey waxaan ku khatibayaa fi saxiix muslim cabdullaahi ibn camr ibn caas saxaabiga jaliilka nin baa u yimid oo ka macnaha ka ishtakoonaya fakhri markaas wuxuu yidhi alaka baytun ta'wi ilayh war maadan guri lahayn aad u hooyatid والله يهبي ألك امرأة تسكن إليه وهذا هوين إذا الهاين بحاصل الهاين والله يهبي مركز سوحي أنت من الأغنياء أذوه حتى ذاتك غنية قرب هدال ليضو غير ليض هاي وذوه يرسي وروحوا الفخر متي أذوه ذاتك غنية قابت كتشر تابيه مركز سوحي نينكو كدر واقاز وحال جاريد وحان لهانو قفو الشقية وحان لا يهبي جاري إيه شقية مركز أنت من الملوك aduu boqortooya lagu siiyay barba hadii lagu shaqeynayo gurigaaga hadii lagu shaqeynayo dunida marka wax qiimo ma leh waxa la inaga doonayaa dunida ka adeego laakiin waa ina ogaataa meesha u socotid iyo aakhiro inay tahay meesha muhiimka ah oo la rabo inaynu u shaqeysano halkaas ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi macna bashar waxa way janno weyn oo aan la koobi karin iyo khayr ba halka ina u shaqeysatid dunidana yaa ku diiday دينتو معناها مديدين زهديغا معناها دينتو مديدين إن معناها الدنيا وحا إلهي كو قدر كقادتيدو وحا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الدنيا وحا كقادو معناها عبادة الله iyo reerkaaga iyo danahaaga iyo waxaaga laakiin xaaraanta iyo qurunka iyo waxyaalahan la ogoleyn iyo waxa aakhirada gubaya intaba waxa weeyaan inaad ka dignoodaatid bal doonaya xadiiska asaas waa nabiga calayhi salaatu wasalaam man asbaha minkum aaminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakannama izat lahu ad-dunya bihadafira asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaghfira dhunubana wa yarhamana innahu li dhalika wal qadir alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in